magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul alaaba waxaan naga daawataan aababkeena kala duwan ee kala ah Roku Box, Fire TV iyo telefoonada gacanta Android iyo iPhone. sidoo kale waxaad naga daawan kartaan website-keena somalinomadnetwork.com. caawa galabta maalinta qof walba waqtiga ay u tahayba waxaa maanta marti noo ah gudoomiyaha xisbiga hayaan waa gudoomiye Xabiib Yaasiin Warsame. kusoo dhawow gudoomiye Xabiib SNTV. aad baa mahadsantahay maxamed wardheer waa kaaga mahad celinayaa maanta inaan halkaan iskugu nimaano ku sheekaysan. gudoomiye kale waxa lagu jiraa waqti xasaasiya oo xagga caafimaadka dhammaan ummadda adduunka oo dhan dhib badan uu ku hayo COVID-19. intaanan u gudbin waraysigaaga arrintan COVID-19 maxaad dadka ka wacyigelinaysaa? aad baa mahadsantahay saaxiibkay maxamed wardheer marka ugu horeysa oo runtii raggii magaaladan the founderska ahaayo maaragtay asxaabta for a long time waa ku mahadsantahay inaan maanta TV-ga amarti kugu noqdo aan ka wada hadalno waxyaaba badan oo runtii muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku wacyigelinayaa inay raacaan shuruucda waddanka ay degan yihiin oo hadda wadamada anaga ku noolahay oo wadamada galbeedka dadka waxaa lagula taliyay inay guryahooda joogaan. marka waxaan kula talinayaa inay guryahooda joogaan kuwa Soomaaliya jooga ayagu dee waaba xagga dhinacaas ay kasii jiraan oo waxa waaye anagu facilitieska caafimaadka aan waddankan ku haysano ma haystaan. marka ayaga waxaan kula talinayaa si gooniya inay uga taxadaraan inay banaanka iyo maxaan ku iraahdaa waxyaabaha socializationka ay iska ilaaliyaan oo ayagana guryahooda ay joogaan. sidana kula taliyay oo hay'adaha caafimaadka ay kula taliyeen waxaa kamid ah in maaragtay faraha la dhaqo oo markastoo qof faasalaantid ama aad maxaan ku iraahdaa aad taabatid aalad inaad faraha iska dhaqdid. waxaan kaloo rabaa anoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan inaan u tacsiyeeyo dadkii Soomaalida ahaa oo ku geeriyooday cudurkan viruska khatarta ah kuwa ku xanuunsaday oo hadda maaragtay ku xanuunsan isbitaalada ku jira dadkaasna waa inaan maaragtay kuwa xanuunsanaa iraahdo Ilaahay caafimaad ha siiyo kuwii dhintayna aan iraahdo Allah u naxariisto. amiin aad baa mahadsan tahay. sidoo kale waa ka tacsiyeynaya intii ku geeriyootay inta xanuunsan oo guryaha taala iyo inta isbitaalada taalabana waxaan Allah uga baryaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafiyo. amiin. sidoo kale waxaan ku kabayaa arrintan dadka Soomaaliya jooga arrintan waa sii adkaanaysaa. kale sidoo wararkana soo gaaraya xamar maanta qofkii koobaad baa si official ah wasaaradda caafimaadka u sheegtay. marka arrintan la yareeyaysanin waa garan karnaa dadka Soomaaliya ku nool sida qaabka loo wada nool yahay way ka duwan tahay qaabka aan ugu noolnahay qurbaha. dadku aad bay isugu yimaadaan aad bay isu soo booqdaan aad bay isu salaamaan aad bay waxbay wada cunaan tiro badan. marka taxaddar dheeraad dadku inay sameeyaan oo aan la sugin inta cudurku uu faafayo. gudoomiye Xabiib sidaan la soconno ama aan hore u aragnayba ama qoraalo badan ka akhrinay inaad gudoomiye u tahay xisbi cusub oo siyaasi ah oo loogu magac daray Hayaan adoo mar booqasho badan ku maraya Soomaaliya xamar Puntland meelo badan maraya isha ayaan kugu qabanay. bal maanta waxaan rabnaa dad badan oo Soomaaliyeed baa waxa laga yaabaa inay ku yaqaanaan dad badanna waxa laga yaabaa inaysan ku aqoonin. bal horta intaanan xisbiga Hayaan u gudbin bal iskaaya bar Cabdi Xabiib Yaasiin Warsame keebu ahaa qofaan ku aqoon baan rabnaa inaad caawi maanta isbarto. waa mahadsantahay mar labaad wardheer. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Xabiib Yaasiin Warsame. dad badan oo dhanka professionals ku baranay waxay yaqaanaan Cali Warsame. sababta magacayga legalka oo waddankan ku joogo Cali Warsame. waxaan ahaa dadkii marka aan faanayo oo
moogtahay Soomaalidu waa jecel yihiin tireless waa jecel yihiin صح صح aniga marka maadaama aanan ahayn sida dadka maaragtay ku faana inay organisation madax u yihiin ama dawladda u shaqeeyaan waxaan ku faanaa inaan ahay qofkii dadka ugu horeeyay oo wadankan Minnesota dadkii yimid waxaan imid 93 Minnesota markaas Soomaalida aad bay ugu yaraayeen marka dadkii magaalada yimid baan haddana isla markaasna waxaan ahaa dadka ugu horeeyay oo college ka aaday Soomaalida markaas dad yar baa Soomaalida ama maba jirin baakshil qof college aaday qofka dadka ugu horeeyay college aadan kamid ahaa degree-gayga ugu horeeyay waxaan ka qaatay jaamacadda Metro State University la yiraahdo waxaan ku qaatay political science degree-gayga labaad waxaan ku qaatay public policy waxaan ka qaatay jaamacadda University of Minnesota haddana waxaan wadaa doctorate oo leadership education jaamacadda la yiraahdo DePaul oo ku taala Chicago baan ka wadaa doctorate meelo badan baan kasoo shaqeeyay waxaan usoo shaqeeyay Hennepin County waxaan kasoo shaqeeyay Ramsey County waxaan u shaqeeyay State of Minnesota waxaan madax u noqday ururo non-profit organizations oo ka jiray Minnesota waxaan kamid ahaa boorar badan oo city Minneapolis iyo Hennepin County iyo State of Minnesota markaan soo koobo taariikhdayda qayb ahaan intaas baan kusoo koobaya sababtoo ah 20 iyo waxaan maleynayaa 93 waxa laga joogaa 27 sano 27 sano marka kuma soo koobi karo barnaamijka waqti dheer bay noo qaaday aad u mahadsantahay inaad soo koobtay adoo muddo intaa la eg ku bixi intaanan u gudbin xisbiga adoon muddo intaa la eg qurbo joogay khaasatan State of Minnesota joogay maxaa kugu kalifay inaad hami siyaasadeed Soomaaliya aad miyaysan kaaga fiicnayn inaad Minnesota wax isu sharaxdo was actually su'aashaasi maan markii ugu horreysay la weydiiyay in fact marar badan baa la weydiiyay Guerrero waxa waaye moogtaa qofba waxbuu xamigiis waxbuu jecel yahay for some reason waxa u malaysaa waqtiga energy-ga iyo dhaqaalaha Soomaaliya aglisay in faa'iidadiisa si dhaqso looga faa'iidi karo marka lagu compare gareeyo tan Minnesota waa wadan dhisan Mareykanka wadankan aan joogno wadan dhisan siyaasiyiin badan bay leedahay waxay leedahay dad badan oo mufakiriina waxay leedahay aqoon-yahan tiro badan laakiin Soomaaliya dadka aniga iyo adiga oo kala wadamadan yimid wax ku bartay ka shaqaystay haday Soomaaliya ku noqdaan waxa u malaysaa impact ay geysan karaan inay ka balaaran tahay tan Minnesota aad ka geysan Minnesota lagu ma dad badan oo adiga ka aqoon badan ka maaragtay ishak siyaasadda kaaga horeeyay ka khibrad badan dhaqaalaha wax ka yaqaana ba ka buuxa laakiin anaga markaan wadan ku noqono waxaan noqonaynaa waxaa laga yaabaa inaan contribution fiican oo la taaban karo runtii wadanka aan meel baahi badan ka jirto marka Soomaaliya baahi badan baa looga qabaa dadka anagoo kala inaan ku noqono xisbiga hayaan goormaa la dhisay maxaase loo dhisay xisbiga hayaan waxaa la aasaasay shuruucdiisa waxaa la aasaasay 2019 in fact muddo 5 bilood waxaa loo fadhiyay in shuruucdiisa dadka ka noqonaya hogaamiyaasha xisbiga ka qayb qaadanaya aasaasiyaasha baa la dhisay 5 bilood muddo 5 bilood laakiin waxaa la launch gareeyay bishii December 2019 baa la soo bandhigay waxaana meesha ugu horreysay oo laga launch gareeyana waxay ahayd magaalada Muqdisho sababaha loo aasaasay waxaa ka mid ah Soomaaliya maadaama la yiri waxaa loo guurayaa barnaamijka asxaabta badnaa oo xisbiyo baa maaragtay sheek doorashada Soomaaliya 2021 ka qayb qaadanaysa teamkeeni aasaasiyaasha waxaan isku aragnay haddaan doorashadaas ka qayb qaadano
ama processkaas ama geed socodkaas ama hayaankaas sida xisbiga magaciisa ka muuqata haddaan ka qayb qaadano inaan runtii aan yeelan karno chance aan noqono hogaanka ugu sarreeya Soomaaliya. sidaad la socoto Soomaaliya xisbiya badan baa hadda lagu dhawaaqay, dad badan baa xisbiya samaystay, inkastoo aan xalimayari ka maqlayay inaysan xisbiyadani xisbiya legit aysan ahayn oo processkii weli wax badan ka dhiman yihiin. xisbigan aad hayaan ajandihiinu muxuu yahay? ajendaheena ugu weyn oo aan rabno Soomaalidana inay meelo badan aan ka sheegay waxa weeyaan Soomaaliya muddo hadda laga joogo I think 4 madaxweyne baa ilaa dowladdii laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf 4 madaxweyne isbedeshay. afartoodu waxay ka midaysnaayeen waxay ahaayeen dad individuals shakhsiyaad ah boorso lacag la yimid baarlamaanka maaragtay sheeg markaas la soo doortay katay saas madaxweyne ku noqday. annagu waxaan uga duwanahay waxaan rabnaa bal markaan Soomaaliya in lagu fiiriyo aragti ka duwan tii hore in dad isku tegay oo isku fikir dhow oo maaragtay sheeg ka midaysan sida Soomaaliya lagu badbaadin karo inaan isku keenno shuruucaan samaysano markaas Soomaaliya saas lagu raadiyo. marka xisbiga hayaan dad noocaas ah hadda ku midaysan adduunka dacladiisa jooga Soomaaliya jooga Yurub jooga nala jooga waddankan Mareykanka North America nala jooga dadka noocaas. marka waxaan rabnaa Soomaaliya bar in laga duwo qaabkii hore oo madaxda Soomaaliya ay ku soo bixi jirtay oo loo leexdo qaab ka duwan kaas oo dad team ah oo ku midaysan mabaadi bal lagu raadiyo Soomaaliya oo markaas haddii lacalla markii hadhow hogaanka ay qabtaan dad isa sixi kara isjeegarayn kara isla talin kara. Soomaaliya waxyaabaha marhabaabiya waxaa ka mid ah nin baa yimaada ninkaasaa dad isku heraariya marka wuxuu noqdaa ninka qofka kaliya oo taliya inta kale waa followers ninkaas wuxuu ku taliya raacaa. marka waxaan rabnaa dad miiska isla fadhiya is indha buuxiya ka dhaxeeya wax ka dhaxeeya maaragtay sheeg hogaanka ka dhaxeeya dad noocaas baan ku midaysanahay. sidaad la socoto Soomaaliya waxaa la gataa xildhibaanada. in xildhibaanada la gatana lacag badan bay u baahan tahay. idinkum imaaraadkaa ku xiran tihiin, khadar baa ku xiran tihiin, Ethiopia ku xiran tihiin. sidaa hadda u dhigayso waxaad muuqataa in dad fakar isugu tagay aad tihiin, laakiin inaan ka fakerin dhaqaalihii lagu gadan lahaa xildhibaanada. marka see kursiga ku gadanaysaan? su-aashaasi waa su-aal runtii si joogtaan loo weydiiyo. waa gartay weliba dadku sida qaabkay noo weydiiyaan waxa waaye ma waqtigaas ka luminaysaa oo cayaar baa ku jirtaan mise qolaa ku xirantihin. arrintaas waxaa keenay waa hadda fakarkan kuu sheegay aan rabna in laga guuro oo qofafkii intay kasoo qaataan dowlado shisheeye lacag kasoo qaataan saas ku noqon jiray hogaan ku qabsan jiray. waxaan rabnaa hadda inaan ku guuro u guuro dad gada mabaadi afkaar maxaan ku idhaahdaa aragtidooda dadka la wadaaga markaasna aragtidooda iyo mabaadiyadooda lagu doorto aan lagu dooran cash ay borsa ku wataan. kuwaas horaan usoo aragnay meeshay ku dambeeyeen waa naqaana. adduunka waxaa laga yidhaahdaa dadka noocaasa transactionalist waa qof lacag ku bedeshay hogaan ku bedeshay. marka badanaa waxaa dhacda dee qofka marka hore
waa la soo dhaweeyaa maadaama uu hoggaanka ku guulaystay laakiin 6 bilood ka bacdi waxaa la baranayaa qofka wuxuu yahay wuxuu aaminsan yahay wuxuu qaban karo kartidiisa la baranaya ka bacdina waa la nacayaa Soomaalida oo anaga hadda dadka noocaas waxa uu qabanaa 1 sano iyo wax la mid ah Soomaaliduna maxaan ku iraahdaa ay sheeg markay arkaan qofkii inuusan ahayn qofkii u qalmay jagada markaas waxay ku bilaabaan mucaarad marka anagu waxaan rabnaa dad lagu doorto afkaar iyo mabaadi iyo wadaninimo iyo shakhsiyad fiican ee marabna dad ku yimid lacag inaan noqono lacagtu de qasab waa noqonaysaa waxa waa doorasho markaa galaysid xataa hadday noqoto dan asbiyada anagu lacagtii biyaha iyo shaaha iyo burka iyo sambuuska dadka ku siin lahay waa haysana intaas ka badan waxaan baleynaa inaan kaga baahnayn waxa waaye hadii mar la yiri dimuqraadiyad laga hadlayo iyo xisbiye iyo barnaamijka asxaabta badan dadku meesha iskugu imaanayaan in lagu wada shaaheeyo lagu maaragtay isheeg intaas baan kaga baahanyaa intaasna waa ka bixi karaa ma isleedahay sidaad hadalka u dhigtay waxaad moodaa waxa dhabta ah oo Soomaaliya ka jira iyo sida u fakaraysaa sababtoo sida hadda jiro process meesha ma jiro nidaam ma jiro one man one vote lama aadayo sida muuqata xisbiyadii ma habaysna maxaa la jira fara banaan murqama saaraan ma wax la jiro sax miyaysa idiin muuqanin waxay idin la tahay inaad isbandhigtaan inaad serious tihiin ama midaan u muuqanin horta waa macnaha waxyaabo waxa jiro caqabado runtii aad u tiro badan oo la oran kara maanta doorasho hal qof iyo hal cod ah ama doorasho xisbiye lagu aadeynaysa ka hirgelin karto Soomaaliya caqabadaha jira daraadood oo waxaa la oran karaa waxaa la marayaa bishii afraad 2020 doorashadan waxaa loogu talagalay September in baarlamaanka at least ay maaragtay sheeg doorashadoodii ku soo baxaan marka waa caqabadaas way jiraan oo runtii calaamad su'aal baa saaran in doorashada lagu aadi doono xisbiyo ama hal qof iyo hal cod horta hal qof iyo hal cod wax warkooda ma jiraan laakiin tii xisbiyada calaamad su'aal baa saaran anagu waxaan oranaynaa doorashadu tay noqotaba wacyigelin baa ku dhisaysaan waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan la hadalno aan ka wacyigelinno yaa ku habboon Soomaaliya oo hoggaanka ugu sarreeya qaban kara inaan u sheegno qualitieska hoggaamiyaha lagu garto inaan u sheegno waxaan rabnaa inaan u sheegno waxyaabihii lagu fashilmay aan xasuusino aan dib loogu noqon waxaan rabnaa in qof Soomaaliya midayn kara oo dadka isku keeni kara oo marxaladda maanta Soomaaliya ku sugan tahay oo dawlad goboleedyadina meel ay taagan yihiin dawladda federaalka ay meel ay taagan tahay ina Soomaaliya saas ay horumar ku gaari in khilaafka laga gudbo haddii la rabo cadowga Soomaaliya in laga adkaado Soomaalidu waa inay midoodaan aad baan fahmay arinta xisbiga iyo arinta uga baxno halka ugu dambayso su'aashan ku weydiinayo arinta xisbiga Soomaalidu ururada ay dhisto ama xisbiyada ay dhisto ama hay'adaha ay dhisto ayaday ku bilaabataa ayadayna ku dhamaataa adigu hadda waxaad sheegatay inaad tahay gudoomiyaha hay'ad ma waxaad tahay ninka finalka ah gudoomiyaha hay'ad madaxweynaha ay u dooran doonaan mise waqti kooban baa lagu doortay وصح حنتاسي وحنشرته إنه قفكو تا أورير صوص ما يستو كشغته وحن أحرنتي واحد شروه لكن أنا جو وحنا هاي قدومية تمبريرية حسبه شربوس قوي ما عندنا ولا قد جودي تونا وحلا فيرين تونا عدة كهبون وكهبون وحسبه مشرح ونقول دونتا والله عذين تونا شروع على سمين تونا وقف كاس دتك كتر تما إنه النقدان حسبه ما ده وصل رئيسه لو كله حرام على سمين تونا مركا أنا جو ما هي قف حسب السماستي
waa mahad celinayaa asxaabta aasaasiyaasha xisbiga oo igu aaminay inaan u noqdo xisbiga hadda waqtiga la joogo hogaamiyaha u noqdo laakiin processkii lagu dooran lahaa qofka musharaxa ah weli waa dhiman yahay taasna go-aan waxaa ka gaaraya dadka xisbiga memberska ka ah iyo dadka asaasiyaasha go-aan ka gaaraya waa jeclaan lahaa inay aniga ii doortaan oo madaxweyne ay iga dhigtaan musharaxa xisbiga laakiin waxaan ku qancayaa processkaas markuu dhamaado cidda musharaxa u noqonaysa xisbiga doorashooyinka iyo qaabka ay Soomaaliya wax uga dhici doonaan waxaa tahay nin siyaasiya waxaa tahay nin ururka hadda xisbiga hadda madax u ah wax badan baad ka ogtahay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya intaad ka ogtahay maxaa ka ogtahay qaabkay u socdaan waxaan joognaa April 5 bilood 6 bilood baa ka dhiman 7 bilood wax la mid ah ka dhiman waqtigii barnaamijka la sameyn lahaa ilaa hadda xisbiya ma diiwaan gashana oo rasmi ah warqadihii lama siinin sidii xalimeeyay noo sheegtay sidoo kale maamul goboleedyadii oo kale waxay sameynayaan taqaan xisbiyay ba sameysanayaan ayaga u gooniya qaar ku fakarayaan sida Puntland oo kale qaabkee iyo sidee bay u socon doontaa bay adiga kula tahay intaad wax ka ogtahay wareero waaye waxaa jira caqabada runtii aada u tiro badan oo qaar ay yihiin dabiici iyo kuwo runtii loogu talagalay in aysan waddanka doorasho ka dhicin 2020 talagal ah kuwa talagalka baan ku hormaraya dowladda hadda joogta waxaa lagu doortay 5 arrimood inay hirgeliyaan tan koowaad waxay ahayd inay dastuurka dhamaystiraan tan labaad waxay ahayd inay waddanka doorasho hal qof iyo hal cod gaarsiiyaan inay ciidamo qaran dhisaan inay amniga dhisaan al-shabaab ka adkaadaan in maaragtay sheek marka waxyaabo badan baa ku hoos jira intaas in waddanka dadka la tira koobo in loo sameeyo voter registration loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan 4 sano baa lagu doortay dowladdaas inay xarimaas hirgeliso qofka dabcan kuwii ka horreeyayna saas baa lagu doortay ayaga waxaa u malaysaa in the 7th hour saacadii ugu dambeeyey inaysa waxaas midna uusan ka hirgelin marka kuwaas waxaan oran karaa waa kuwa lagu talagalay sababtoo ah waan ogeyn 2016kii dowladda marka la doortay waxyaabihii ugu horreeyey oo la rabay inay ka shaqeyso waxay ahayd inay horta u yeerto dowlad goboleedyadii markaas dhisnaa inay u yeerto miiska soo furiiso sababtoo ah arrimaha aan sheegay oo dhan qaar badan oo ka mid ah ayaga ku xiran inay miiska fadhiyaan inay doorasho waddanka ka dhacdo dowlad goboleedyada qeyb bay ka yihiin sababtoo ah haddayse ayagu raalli ka ahayn doorashada xaggee bay ka dhacaysa dadkii waddankii macnaha dhulkii waddanka ugu baaxadda weynaa ayagaa ka ah madax ayagaa ka ah marka waa ayagu waa inay on board noqdaan dastuurka in la dhamaystira waa inay ayagu miiska fadhiyaan oo arrintaas wax ka design gareeya oo xubno ay ku leeyihiin sida dastuurka uu qorayo in ciidamo qaran la dhiso ayagaa laga rabay inay laga keeno dowlad goboleedyada 3,000 oo ciidana kiiba laga keeno qeyb bay ka yihiin marka waxaa u malaysaa waxyaabaha sababay inaan maanta 2020 aan is hor fadhino oo is waxba diyaar ahayn waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah midnimadii waddanka midnimadu waa the primary objective oo dowladda lagu doortay in fact qof kasta oo raba Soomaaliya inuu guul ka gaaro marka hore horta waa inuu mideeyaa Soomaalida si loo helo in loogu gudbo tilaabooyinka kale oo muhiimka ah kuwa hadda ku sheegay oo kale dowladda marka waxay ku fashilantay inay waddanka mideyso fact waxa u malaysaa inay khilaafkii empower gareysay oo sii kordhisay intay khilaafka yareyn lahayd marka sababaha maanta aan isku horfadhno ay waxba u jirin waxaan leeyahay ayagaa mas-uulka ah laakiin aniga message clear aan rabaa inaan u diro maanta waxa waaye Soomaalidu
shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican dulqaad badan waxay u dulqaataan in hantida waddanka la musuqmaasuqo oo nin guryo u ka dhisto baabuur u ka dhisto daaro u ka dhisto diyaar buu yahay macnaha ay sheeg ayagoo og oo u jeeda bay haddana u dulqaataan waxay u dulqaadanayaan inay hal bil doorashada lagu daro 2021 hal one month shacabka Soomaaliyeed iyo xisbiyada anagu shacabkan waa wakiilkana shacabka iyo xisbiyada Soomaaliyeed in hal maalin lagu daro raali kama noqonayno in fact waa the red line ka waxa waaye aan la cross garayn karin Soomaaliya hogaamiyaha 4 sano ha ku cayaaro wuxuu rabo ha sameeyo wuxuu rabo ha qaato laakiin maalinku isku dayo inuu hal maalin ku darsado maalinkaas waaye maalinka dib u dhac maxaan ku iraahdaa waxyaabo laga soo gudbay oo maxaan ku iraahdaa Soomaaliya dib u dhac ku ridi karo oo aan ka digayn anaga in dib loogu noqdo maxaa diidaya haddii ilaa dawladdan dastuur bay ku timid haddii waqtigeeda dhamaado oo mandate-keedu dhamaado dee shacabka Soomaaliyeed dawlad goboleedyada Soomaaliyeed gobolka Banaadir inay yiraahdaan dawladdaas ma aqoonsanin markuu mandate-keeda dhamaado maxaa diidaya cid diidaysa ma laha inay dadku markaas isku tashadaan oo qof kasta say la tahay uu arko Soomaaliya meeshii aadaysa maxaa diidaya ilaa maadaama macnaha ay sheeg dawladda waa gartay Abdi Xabiib waan gartay waxyaabo ay ka siman yihiin mucaaradka jira ereyga la headline macnaheedu 4 maalmood laakiin wuxuu doono ha ku sameeyo 4 sano sida la socota Puntland ku baabaaday oo dad badan oo Soomaaliyeed nin walba inta loo dhiibo bal yaan la hadlay 4 sano wuxuu doono ha sameeyo ma u muuqanaysaa marka adigu iyo dadka siyaasiyiinta oo kala mid ah waxaynu inayna Soomaali iyo dal inaan dan kala hayne idinku kursi una doonaysaan oo idina aad rabtaan 4 sano aan la idin hadlin in meesha laga abuuro maxaa uga hadli weydeen waqtiyada iyo muhiimadaha waqtiga ay taagan yihiin in la qabto 4 sano maxaa u daawanayseen su'aal fiican waay horta waa caqabadahan hadda aniga aan ka hadlayo waa caqabada Soomaaliya oo dhan ka jira laakiin anaga hadda waxaan ka hadlaynaa doorashada 2021 oo Soomaaliya lama daawanayo runtii intaas dawladda xukuumadda hadda jirta intaas waa la hadlayay waxaan rabaa horta inaan kuu sheego annagu waxyaabaha objective-ka noo ah oo aniga aan aaminsanahay xisbigu waa aaminsan yahay waa in sida kaliya oo Soomaaliya looga gudbi karaa khilaafaadka iyo caqabadaha jira waa midnimo waa in dadka la mideeyo dawlad goboleedyadu ma perfect ba ma wax perfect ma jiraan qaladaad badan bay leeyihiin laakiin in Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo waxay ka yihiin xubno aad u muhiim ah waa inay miiska fadhiyaan annaga marka waxaan rabnaa oo annaga objective noo ah in waa waxyaabaha hadda ay ku fail garaysay dawladdan ku fashilantay inaan ka shaqeyno haddii aan xukun ku guuleysano waa inaan dastuurka la dhamaystiraa iyadoo Soomaalida dadkii qusayso oo dhan ay miiska fadhiyaan waa in ciidamo qaran la dhisaa iyadoo dadka ay qusayso oo dhan miiska ay fadhiyaan Soomaaliya waa la wada leeyahay annaga dhan bay naga dhaxaysaa taariikhdii hore oo Soomaaliya ku burburtay mar rabna inaan hore ugu noqono marka haddii la rabo in hore loo socdo oo waa in la hirgeliyaa dastuurkan qabyada lagu heshiiyey waa in la hirgeliyaa hadda waxyaabaha ugu waaweyn oo ay tabanayaan dawlad goboleedyada waxaa ka mid ah in dawladda federaalka ay rabto awoodihii ayaga ay lahaayeen kuwii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ka dhaxeeyay hay-adihii horta ahaa oo ka madax banaanaa xukuumadda inay kulligood filla Soomaaliya laga xukumo waa waxyaabaha hadda khilaafaadka keenaya aan halkaa kaa dhex galo waxaad sheegtay dawlad goboleedyadu in awoodeedii
inay mar walba la fadhiyaan dowladda federaalka oo aan dhibaato khilaafaadka ugu badan oo hadda ka jiro uu yahay inay dowladda federaalku awoodiha iyadu isku koobtay. dadka laga soo doorto xildhibaanada dowlad goboleedyada iyo senatarada laga soo doorto waxay ka mid yihiin dadka muqdisho villa Soomaaliya fadhiya oo go'aanada dalka gaara. صح marka la leeyahay dowlad goboleedku dowladda federaalka gacanta waxeeda ku haysata ma waxaa loola jeedaa nimankan xildhibaanada iyo senatarada ka kala yimaado maamul goboleedyadu ma matalaan maamul goboleedyada ee waxa matala madaxweynaha maamul goboleedkaas biya matala. marka ma dagaal baa wuxuu ka jiraa madaxda maamul goboleedyada oo madaxweynaha ah iyo dadkii ay soo dirsadeen ma isfaham la'aan ka jira? very good question. And wareer waxa waaye markii la qaybsanayay awoodaha Soomaaliya laba awoodood baa la qaybsaday. midna waxay ahayd tii ku salaysnayd awood beeleedkii oo ku salaysnayd 4.5 oo beelaha wax qaybsaday. midna waxaa qaybsaday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. waxaan malaynayaa tii beeleedka oo 4.5 ku salaysnayd inaysan wax dooda ka jirin hadda oo xildhibaanadii 270 iyo dhowr xildhibaan baa ku soo baxay. tan dood ay ka jirtaa waxa waaye waa awoodihii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mid ka ah ay qaybsadeen. marka awoodahaas waxaa loo qaybiyey labo. waxaa loo qaybiyey awood dowladda federaalka ay leedahay oo iyadoo iska leedahay dowlad awood dowlad goboleedyadu ay leeyihiin iyo mid la wada leeyahay. saddexdaas baa loo qaybiyey. waxaa u malaysaa dooda ugu weyn inay ka jirto awoodaha la wada leeyahay. awoodaha la wada leeyahay waxaa ka mid ah Soomaaliya oo hadda la wada leeyahay inta dastuurka la dhamaystirayo waxaa ka mid ah in ciidamo qaran la dhiso waa awood la wada leeyahay. in dastuurka la dhamaystiro waa awoodaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada leeyihiin. dowladda federaalka kaligeed dastuurka ma dhamayn karto. macnaha ma waxaa imaan doona waxaa imaanaya golaha wasiirada dowladda federaalka iyo golaha wasiirada federaalka ka fariisanaya yaa wasee loo sheegay awoodahaas waxa ka la wada leeyahay waxaa sida dastuurka ku xusan waxaa ka wada hadlaya madaxda dowlad goboleedyada iyo xukuumadda dowladda federaalka baa ka wada hadlaya. marka macnaheedu ma baarlamaanka inaan fahmnaan rabnaa dad badan baa ku wareersan Soomaaliyeed. waa sax ma baarlamaanka dowladda maamul goboleedyada baarlamaankooda iyo kan federaalka ka wada hadlaya ma kan madaxtooyada iyo madaxtooyada ka wada hadlaya dastuurkan yaa way qolada inay ka wada hadashata exact dastuurka dhamaystirkiisa Soomaaliya dhan buu quseeyaa. in dastuurka marka la dhamaystiro oo afti loo qaado Soomaalida dowlad goboleedyadu vested interest bay ku leeyihiin. soo faham waa inay ayaga wax laga weydiiyaa waa in lagala tashadaa waa in maamulka xukuumadda maamul goboleedka lagala tashadaa waa inay in fact we can even go further wuxuu dastuurku leeyahay waa inay qof soo dirsataa xukuumadda xukuumadaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa inay qof matala dastuurka waa inay soo dirsadaan. wuxuu kaloo dastuurku leeyahay anything oo ku saabsan dhaqaalaha waa in lagala tashadaa dowladaha xubnaha ka ah. waxna waa go-aanka gaarid waxna waa la tashi. waxaa leedahay waxaan waa la tashi waa un la tashi qofku waa lala tashan karaa inta loo yeero baa la fariisin karaa waxaana rabnaa inaan wado laakiin go-aanka inay dowladda federaalka iska leedahay mise go-aanku waa markii la codaynaya dad baa inta soo fariista waxaa loo codaynayaa maamul goboleed iyo federaal baa loo codaynaya. waxaa la leeyahay dastuurka hadda qodobka 53 farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay dhaqaalaha marka laga sheekeynayo iyadoo la ilaalinayo midnimada Soomaaliya waxyaabaha ku saabsan Soomaaliya hadda dhaqaalaha soo gala ugu badan waa kan ka yimaada donors ka yimaada. wuxuu leeyahay qodobkaasi waa in
dowladda federaalka iyadoo ilaalinaysa midnimada Soomaaliya hadday aid go-aan ka gaarayso hadday treaty saxiixayso hadday trade galayso waa inay kala tashataa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ya go-aan basically keligeed kama gaari karto iyadoo ilaalinaysa iyadoo rabta inay ka shaqeyso inuusan khilaaf soo kala dhexgelin marka badanaa waxaa la isku qabsadaa waa qodobkaas aniga markaan u fiirsaday Soomaaliya problemkeeda hadda marka qofka waxaa la rabaa hogaamiyaha oo wadanka ugu sareeya sida hadda Farmaajo iyo khayr oo kale waxaa laga rabaa ayagoo xeerinaya marxaladda wadanku ku jiro ayagoo ka warqaba marxaladda wadanka soo maray ayagoo og khilaafaadka ka dhexeeya Soomaalida in ayagoo xeerinaya dastuurka in fact inay la shaqeeyaan cid kasta oo ay qusayso horsocodka Soomaaliya macnaha waxay la mid tahay adigoo leaders ku aragtid oo haddana other leaders maxaan ku iraahdaa raba inuu hogaamiyo marka Siciidani ninka la yiraahdo Axmed Madoobe qoorqoor lafta karen this guys waxa waaye aniga in my eyes Soomaaliya waxay ka yihiin playerska siyaasadda Soomaaliya bay qayb ka yihiin la'aantoodna Soomaaliya meel ma gaari karto waa jecelahay inay Soomaaliya maalmaha kamid ah noqoto mid kaliya uu xukumo maaragtay isha qofka mandate-ka iska loo shacabka ay doorteen laakiin qof ilaa hadda irtaan shacab u soo doortay ma jirto waxaa joogta madax ay dad kooban ay doorteen soo fahmay iyo madax kale oo dad kooban ay doorteen marka si loo hadafkii aan lahayn visionkii aan lahayn oo ah Soomaaliya oo mid ah oo xor ah oo maaragtay horumar gaarto oo dadku ay midaysan yihiin waa in oo cadowgeeda ka adkaata waa in dadka Soomaalida isla shaqeeyaan oo isku arko hogaamiyaasha ma aaminsan tahay Abdixbiib ma aaminsan tahay dastuurka Soomaaliya hadda oo aad adigu hadda sidaan u qeexayso inuusan asalkiisa horba sax ahayn sida loo design gareeyay iyo qaabka loo sameeyay aniga dastuurka Soomaaliya markaan runtii u fiirsaday oo akhriyay oo study gareeyay in fact waa wax ku qoray dastuurka Soomaaliya sida federalismka uu xal u ahaa Soomaaliya at the time waa isagana xal u ahaa waa dastuur dib u heshiisiineed waa dastuur basically dadkii maxaan ku iraahdaa lahaa constructionka dastuurka markay xaaladdu markaasay ahayd bay ku saleeyeen dad kala tegay aan israbin isdagaalay khilaaf ka dhex jiro baa la rabay in la isku keeno hadda qodobkan aan ka hadlayo kale in fact asagaa kan konton iyo afraad baa contradiction ku sameynaya wuxuu leeyahay dowladda federaalka ayadaa u madax bannaan dhaqaalaha midna wuxuu leeyahay waa inaad la tashataa weliba tala keliya ma ahane waa inaada keligaa go-aan gaarin isma diidayaan taladu waa la weydiin karaa laakiin go-aanka saxda hadduu yahay 54 hadduu yahay dowladda mayaysan xaq u lahayn inay go-aan gaarto sababta tan loo yeero hadduu ninku imaan waayo sida dani oo kale sida la socoto madaxweyne mar hadda ka hadlaya madaxweyne wuxuu yidhi dhowr jeer buna dulmaray si nagu dulmo marka hadduusan rabin ninkii inuu yimaado talana qaadanin miyaysan dowladda xaq u lahayn inay go-aan gaarto okay marka suppose inuu maxaan ku iraahdaa xukuumadda dowladda federaalka ay go-aan gaarto ay tiraahdo waxaan galaynaa doorasho hal qof iyo hal coda ku salaysan xisbiyo oo Siciidana uu yiraahdo ma taageersan doorashadaas ma taageersan oo lafta gareen uu yiraahdo no anigu waxaan taageersanahay 4.5 doorashada dibadda ku dhigo tii waxaan taageersan uuna yiri oo uu yiraahdo ninka la yiraahdo awaara uu yiraahdo anna ma taageersan doorashadaas xagee bay ku qabanayaan farmaajo khayr xagee bay doorashada ku qabanayaan macnaha waxyaabo waxaa jira reality oo la iska intiri karo the reality of today waxa waaye it's not something that you can ignore haddaa ignore garaysiinta horumar kuma gaarayso waxa hadda maantay
meeshaana dhigay oo doodaan keenay waxaa la ignore gareeyay waxyaabo aas-aasi ahaa oo muhiim u ahaa doorashada 2020 hadda nimankii gambar bay ku fadhiyaan waxay yidhaahdeen doorasho haba yaraatee annagu aanan raalli ka ahayn kaba dhacay soomaaliya annagu waxaan ka nimid wadamadan hormaray waxaan ka nimid wadamadan galbeedka ah doorashadu in fact doorashadu waxay noqonaysaa local awoodda doorashada waxaa yeelan doona dowlad goboleedyada markii laga baxo dastuurka uu dhamaystirmo annagu waxaan idhahnaa all elections are local annagaa madaxweynaha doorana maamul goboleedka hadda annagaa deganahay Minnesota madaxweynaha annagaa doorana sanadka annagaa doorana baarlamaanka annagaa doorana cid kasta oo dowladda federaalka annagaa doorana imagine Minnesota hadday tiraahdo dooran mayno macnaha caqabad bay noqonaysaa waxay noqonaysaa xubin muhiima oo wadanka oo dowladda federaalka ka maqan oo aan ku lahayn representation dowladda federaalka marka waxaa la rabaa inay wixii laablakac inay noqdaan la rabo lama rabo inaad tiraahdo aniga am the sole power anaa mas-uul ka ah Soomaaliya waxaa la rabaa inaa wacyiga markaas jira ku salaysid farmaajo iyo khayre anoo gabagabadii ku dhow farmaajo iyo khayre waxay saxiixeen sharciga doorashooyinka kale waa arta madaxweynaha warqad taagay inaad aad u daawataan u maleynaya wuxuuna yidhi anagu one man one vote baanu mataqaanaa guddina waa loo saaray waxaad moodaa inuu iska horwareejiyey reality on the ground-ka ahayd oo uusan lagu eedeynin madaxweynihii one man one vote baa sababta qodobadii halkan hadday soo tirinaysay oo 5 ahaa waxaa ka mid ah dadka one man one vote in loo diro khayri farmaajo waxay muujiyeen waxay dhaheen anigu waaba saxiixinayba one man one vote laakiin sida loo samaynayo they don't care sida ka muuqata cidda samaynaysa guddi baa loo saaray hawsha halawo saysan ayagu ugu soo noqonin hadda bareedku wuxuu la yaalaa marka sida xisbiyada idinka kale mucaaradka madaxweynuhu iyo dowladda federaalku one man one vote ummadda Soomaaliyeed ma aysan gaarsiinin ma garatay laakiin qaabkii loo gaarsiin lahaa iyo number waqtigeedii iyo waxeed lagama wada hadlin laakiin waxaa la yidhi si legally ah waxaa la ogolaaday in one man one vote la aado boolka hadda wuxuu yaalaa guddi baa la sameeyey guddiga doorashooyinka la yidhaahdo oo ka madax bannaan sida la sheegayo markaas dowladda ka madax bannaan oo guddi madax bannaana berrito hadday keenaan guddigaas yidhaahdaan 51 bay ahayd one man one vote macquul ma qof walba Soomaaliya uu dareensan yahay dadku indhaha malaa waxay way fahamsan yihiin qoladina xisbiyada ah hadii laga dhigo 101 oo arintii la dabal gareeyo sax ma u aragtaan haddii naas u arkin maxaa kaloo xal haysaa horta laba arrimood waa la isku raacsan yahay midda koowaad waxa waaye waxa la isku raacsan yahay inaysan doorasho hal qof iyo hal cod aysan dhicin waxa kaloo la isku raacsan yahay inay doorasho dhacdo 2021 noocay rabtaa ku dhaca labadaas arrimood halkaasaan dhigayna doorashada hadda ay ka sheekeynayaan ninka la yidhaahdo farmaajo iyo khayre waxaan tusaale kaaga soo qaadanayaa xisbiga hayaan inuu shuruudaha xisbiyada u yaallo buuxiyo waxay qaadanaysaa markay ugu yaraato 2 sano qaabkay wax wadaan macnaha shuruudaha loo dhigay xisbiyada loogu talagalay inay buuxiyaan hadda annaga hadda maanta bilowno ugu yaraan 2 sano ay qaadanaysaa marka waxyaabo badan oo aa umalaysid in hadda dee moogtahay waxaa la xushmaynayaa Soomaalidu meel fog bay ka timid waxaa laga xishoonayaa dadka Soomaaliyeed oo soo jabay oo 30 sano soo jabay in lagu celiyo moogtahay marxalad hor leh oo aan fiicnayn laakiin waa loo jeedaa dowladda hadda jirta
inay barnaamijka daraag garaynayso inay dadka rabto inay frustrate gareeyaan inaysan doorasho inay qabtaan diyaar aysan u ahayn waa loo jeedaa laakiin dadkii indhagaradkaa soomaaliyeed oo annagaan ka mid nahay xisbiyadaan ka mid nahay waxaan ka xishoonaynaa inaan niraahno maogtahay sidaan halaga daayo or else inaan alternative aan fiicnayn aan ka hadalna hadda maanta marka horta doorashadii aan jeclayn oo soomaalida anaga dhinaan ku haminaynay oo soomaalida ay rabtay oo halka qofka iyo halka codka ahaa iyo xisbiyada ma muuqato say ku dhacayso waxaa muuqda sida keliya oo doorashada ay ku dhici kartaa aniga saan anaga qabno in xisbiyada shuruudahoodii lasoo yareeyo lagu soo yareeyo xisbiga inta xildhibaan uu ka heli karo degmooyinka soomaaliya oo hadda 4.5 for example in kuraasta la asteeyo loo asteeyo jifooyinkii iska lahaa kabacdi dadka musharaxiinta oo jifadaas iska soo sharaxaya isku soo sharaxaan xisbiyo iska soo dhex sharaxaan for example 5 qof baa ku tartamaysa degmada for example degmada Galdogob oo ay jifo leedahay 5 qof inay xisbiyo kala galaan saas ku tartamaan xisbiga markaas the numberska fiican keena uu noqdo xisbi dhaba oo u gudba maaragtay ka qayb macnaha noqdo xisbiyada wadanka kuwa kalena ay haraan saas laakiin macnaha imagine macnaha jahwareerka qofka hadduusan naxariistii iyo ixtiraamkii soomaalinimada uusan lahayn macnaha imagine jahwareerka hadda Soomaaliya ay ku jirto inaan maanta ka tashano iyadoo ay ka hartay waqti kooban inaan ka tashano aan ka wada hadalno oo waliba iyadoo moogtahay qof kasta say la tahay meeshu rabo ku qaado waxa keenay fashilka ka yimid nabadii nool sida aad hadda adigu ka sheegtay waxa tiri wax walba waxay aadi doonaan sida federaalka awood waa la leeyahay oo maamul goboleedyada awoodda la leh sidoo kale maamul goboleedyadu degmooyinka ay ka yimaadaan waxa federaalka laga filayo oo laga rabo ba iyaduna kulli laga rabi doonaa sida hadda la soconnana maamul goboleedyada maba jiraba consul hadda la soo doorto badankood hadda gaban waxay magacaabaan gudoomiye degmay magacaabaan marka haddii maamul goboleedyadii laftooda madax ka nool yihiin miyaysan muuqanaynin inay xaq u leeyihiin dowladda federaalku ayagana hawshooda inay qabsadaan macnaha waa waxa jira waaye hadda Soomaaliya maamul goboleedyada ugu horeeyay oo kaana qaaday waxaa ka mid ah Puntland Somaliland oo basically ayadoo aaminsan otherwise Somaliland waxaa malaysaa inay implement gareeyeen doorasho in fact Somali doorasho inay maxaan ku yiraahdaa implement gareeyeen macnaha waafaqsan dhaqanka Soomaalida waa la oran karaa Puntland su'aalaha horyaalla bay ka mid yihiin haddaa idinkii dowladdii Puntland ay ka nooshahay Garowe oo loo magacaabo gobortoorihii gaalkacyo adiga madaxweynaha u magacaabo waxaa diidaya inuu madaxweynaha qaranka usaas u fikiro macnaha it's an argument waana argument sax waana tan aan hadda ku ammaanayo tilaabada Siciidin uu qaaday oo ay baas gareeyeen xeerar ay Puntland ugu gudbayso hal qof iyo hal cod oo ku saleysan xisbiyo
laakiin waxaa la oran karaa waa soo daahday 21 sano ay jirtay Puntland aad bay u soo daahday runtii mid soo daahday waaye waa qolo inay tusaale u noqotaa Soomaaliya inay Puntland tusaale u noqotay ahayd runtii aad bay uga gaabisay laakiin hadda day ka shaqeynayaan oo ku amaanayna laakiin ma ogtahay annaga si gooniya baan dowladda federaalka will hold them accountable sababtoo ah dowladda qaranka Soomaaliya ayaga waxaa laga rabaa inay dowladda federaalkana dhisaan dowlad goboleedyadana dhisaan ayagana accountable ka dhigaan macnaha waxay ku xiran tahay qofka hogaamiyaha waddanka ugu sareeyo u dhaqmo bay kuwa kalena u dhaqmayaan marka even though Puntland ay tahay gobol jiray 21 years haddana waxna suurtagelin waaye inuu lagu eedayo marka nimankii 3 sano jiray macnaha it's unfair waa la oran karaa it's really unfair waa gartay laakiin ay labadooda isku miisaan ma la saari karaa Puntland iyo dowladda federaalka isku miisaan ma la saari karaa midna waddanka oo dhan bay waxay ka tahay mas'uul ka tahay sax midna gobol bay mas'uul ka tahay soo fahmay marka dee mas'uuliyadda waa lagu kala badan yahay laakiin miyaysan muuqanaynin mucaaradada hadda ugu badan Puntland bay uga timaadaa dowladda federaalka dadka siyaasiyiinta ama dadka xisbiyada mucaaradka oo dhan kama hadlaan fair inaysan ka ahayn waxa ka socda dalka guud ay kaliya fair ka yihiin kursiga dowladda federaalka kaliya inay complainkeeda sheegaan ma maqlaysid xisbi ama haddaba naamada sheegin in maamul goboleedyadu ay khaladaadka ay dhixi waayeen 22 sano ay rabaan in 3 sano gudaheed in lagu saxo ay wax cududaar bixinaynin sababta waxa weeyaan annaga horta waxa waaye waxaan u tartabaynaa kursiga waddanka ugu sareeyo dowladda federaalka midana waa localkiini Puntland meesha ka timaadeen waa tartamay marka waxaan u malaynayaa xisbiyada hadda ka aasaasmay Puntland oo localka baa la xisaabtami doona xukuumadda waa gartay 3 xisbi baa soo haraysa marka cid kasta waa furan kartaa ma sax weeye cid kasta waa furan kartaa tusaalahan waan fahmay anigu Puntland baan ka soo jeeda Puntland baan deganahay 3 xisbi oo seem jifa ah baa isdiiwaan geliyay lacagtooda ku isbaangareeyeen waqtiga geliyeen national level jiro hayaan baan anigu rabaa inaan iska diiwaan geliyo diyaar buu maahay see isu waafajinay marka see 3 xisbina aniga ay xukumayaan hayaanna ay xukumaysa very good marka adiga oo kale waxa sameynaysaa waxaan leedahay anigu xisbiga hayaan baa waxa ku qasbaysaa garowga inay ogolaadaan inay xafiis ka furtaan waa gartay baa qasbaysaa waxaan leedahay aniga waxaan rabaa xisbigan baan ka tirsanaa nationalka localka waa ka gudbay sax kuma qaraacsanay localismka waxaan rabaa xisbigaas inaan ka qayb qaato marka siciidani iyo xukuumadda Puntland baa waxa ku qasbaysaa inay ogolaadaan inay xisbiyada qaranka Soomaaliyeed marka xafiis ku yeeshaan awoodii adoo national level ka yimid iyo Siciidani iyo hal degmo haysta macnaha Siciidani iyo maamul goboleedka Puntland haysta uu ka awood badan yahay adigoo intaas oo maamul goboleed ka soo furtay bas Siciidani wuxuu ku dhigi karaa kama furanaysa halkan because already 3 group oo mataqaana ka awood badan oo isku xiran oo markii hore Puntland hore u haysan jirtay baa waxay rabtaa inay sii haysto marka hayaan boos looma hayo hayaan ha guurto horta waxaan ku sheegayaa awoodan ka hadlayaan marka meeshan ka imaan inay fahamto awoodda waxa waaye horta nin tuur leh soo saacda isaga garta annaga waxaan rabnaa inaan ixtiraamno madaxda dowlad goboleedyada waxaan rabnaa inaan shuruucdooda ixtiraamno waxaan rabnaa in si uu ixtiraam ku jiro aan inaan uga hirgelino xisbiga hayaan نوع احترامي إنه مدحاس يعني الفكت وحنا الكويرة أنا كمان كان حتى جرو تقني وحنا الكويرة حسبية الناشنال كا والدولة الفدرال كا يبغوا ما أقول سنة we respect that وحن جوتشنا إنا حفيز كفرنا وحن جوتشنا إنا محاكو إرادة كان بيجرينا وحن جوتشنا إنا ماركت صار كونفليكت لوابور لكن واحد ساعة ما لكن واحد معناها no feeling the problem كوحواي Somalia مرحلة كوتشرتو there's no right and wrong
صح in fact hadday cidi qaldan tahay and hopefully anagu hadda maxaan ku idhaahdaa ii sheeg dee Puntland nin baa madaxweyne ka ah anu ma difaacayo hopefully inaa asaga is arki lahayd inuu arrimaha kala sheekaysan si fiican laakiin waxaan kuu sheegayaa dowladda federaalka oo ah dee hooyadii maamul goboleedyada waxaa la yidhahdaa Puntland baa hooyadii laakiin dowladda federaalka ah hooyadii maamul goboleedyada ayadaa waxaa laga rabaa maadaama ay soo bandhigtay in doorasho ay ka dhacayso Soomaaliya oo xisbiya lagu galayo waxaa la rabay inay ka fakarto qaabkii ay ula shaqeyn lahayd dowladaha xubnaha ka ah dowladda moogtaa waddankan annaga aan degannahay marxaladda noocaan oo kale soodaan oo kale wuu soo maray laakiin dadka dee ehlo caqliga ah oo mufakarka waxay og yihiin haddaa rabtid inaad plan A inta ka tagtid plan B aa gaartid dee sidaa ku gaari lahayd waa inaad ka shaqaysaa marka haddii aad og tahay inay Puntland caqabad noqon karto doorashada ay caqabad ku noqon karto dee waxay ahayd inay waxaas laga shaqeeyo waxaa kale aan kuu sheegaya dee hadda maamuladan aan arkaysid qaylinaya ayaga laftigoodu de conflictigooda ama doodoodu ma ahan mid iska timid maaha soo ma fahmi waa mid ku timid muran maxaan ku idhaahdaa in loo diiday waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen oo dastuuriga ahaa in runtii loo diido waa mid ku timid in basically la isku dayo in xoog lagu maquuniyo oo la yiraahdo adu maamul dowlad goboleed baa tahay aniga dowladii rasmiga ahayd marka igama daba hadli kartid taasna waxaan u malaynayaa inaysan Soomaaliya ku dhisin karin waxyaabaha halkaasna waxaan rabaa laba su'aalood ugu dambaysa kulli waxaad moodaa waxaa xakameyn doona dastuurka Soomaaliya loo sameeyo markaas hala negotiate gareeyo maamul goboleedyada sababta wadanku hadduu content dastuur kala nooc leeyahay dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya jira dastuur baa Puntland ka jira midna Hirshabelle ka jira midna federaalku ka jira shuqulna isku malahan marka waxa khasbanaan doonta dadka Soomaalidu inay dastuurada sax in la iswaafajiyo awoodahana saa marka hoos loogu daadajiyo hoos laga soo dhiso ilaa kor la isugu yimaado taas marka halkaas aan uga haraynaa hayaan waa mucaarad gudoomiye Cabdixabiib Yaasiin Warsame wax badan oo dhaliilaha oo ka sheegay dowladda federaalka hamaan aaw noo sheegtay caqabadaha iyo shidada ay dowladda federaalka iyo maamulkooda iyo madaxdoodu ay maamul goboleedka ku hayaan shacabka ku hayaan processki loogu talga ku hayaan listigii ma aysan qabanin shaqooyinkii mid iyo laba waxaan nooga sheegtaa waxqabadka ay qabteen aad ku amaanayso horta waxaan kuu sheegayaa annaga hadda dhaliilahan hadda ka sheekeynayo mid annaga cirka nooga soo degay oo ma ahana maaragta ii sheeg aan iskala nimid ma aha waa mid ku timid daawashadii aan daawanaynay intii xukunka hayeen nabadii nolol waa mid ku yimid la sheekaysiga shacabka aan la kulannay intaan maxaan ku idhaahdaa xisbigan uu jiray waa mid ku timid la sheekaysiga dowlad goboleedyada maaragtay siyaasiyiinta dadka dee ay qusayso horumarka Soomaaliya mid ku yimid waa marka laakiin waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya waxaa jira caqabado dabiiciya oo aan lagu eedayn karin farmaajo iyo khayr waxaa ka mid ah kuwa qabiilka kuwa keenay burburka Soomaaliya kuwa ka yimid ka dhashay waxaa ka mid ah al-shabaab oo runtii ah dhibaatada ugu weyn oo hadda Soomaaliya haysata kuwaas laguma eedayn karo waxaa lagu ammaani karaa waxaan rabaa inaan ogaado waxyaabaha aad leedahay waa fahamsanna waxaas oo dhan waqtiga nagu dheeraada awgiis waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno waxyaabaha 4 sano oo la soo dhameeyay
ku ogahay xisbi mucaarada tahay waa ku ogahay xisbi mucaaradku badanaa wuxuu aad u raaraadiyaa ama u qodqodaa khaladaadka markaasi dowladdu leedahay laakiin asaka xisbi ahaan maxaa is leedahay waa u qabsoomeen ummadda Soomaaliyeed maxaa is leedahay guulaha ay gaareen nabad iyo nolol maxay yihiin والله waxaan anigu lagu xasuusan doonaa nabadii nolol waxaa ka mid ah jacaylka farmaajo iyo khayr waa lagu xasuusan doonaa jacaylkaas tirada badan oo maaragtay ii sheeg 4 sano wada dhameysanayo waa is jeclayeen oo ismaanaan dilin taas waa lagu xasuusan doonaa waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa sida ay social media dadka u mobilize gareeyeen oo maaragtay ii sheeg anigu hadda waxaa lagu xantaa inay dhalinyaro inta lacag u qaybiyeen ay maaragtay Facebook ay u fureen si ay dawladda u taageeraan laakiin aniga waxaan oranayaa arrintaas arrimaha anaga hadda cadeynteeda ma hayne laakiin waa arrimaha lagu xasuusan doonay ka mid tahay in moogtahay dad badan oo taageerayaal jacaylkan hadda aragnaa anagu waxa kaloo ma garan waa gartay ay jiraan arrintaasi waa anagu waxyaabaha hadda aan ku haminayno runtii inaan dhalinyarada Soomaaliyeed mobilize garayno laakiin moogtahay dhalinyarada lama rabo in habi bayana la geliyo waxa la rabaa si maaragtay ii sheeg daacada oo ayaga wax taraysa in loo mobilize gareeyo waxa kale waa fahmataa aniga intaas baan u maleynayaa waxyaabaha lagu xasuusan doono aad baa u mahadsan tahay Cabdixabiib Yaasiin Warsame booqashadaana soo booqatay SNN studio-heena waan kaaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa mar labaad mar saddexaad inaan is arki doono kulay waa waqti cusub oo early campaign-ki wali ma bilaabanin inaan ku barano aan hayaan aan xisbiga barano dad badan oo Soomaaliyeed aan hore aqoonin ay caawa bartaan marka shacabinaha Soomaaliyeed waxaan uga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo kulatin dambe oo xiiso leh وأنا محمد ورديرة إيوه عبد الحبيب ياسين ورسمة وأقدوميها هيان سداسيو نبت قليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.